saad la socotaan habeenadii ugu dambeeyey aan ballansanayn cashirka aan ku ballansanayn waxaa inoo saamixi waayey qadka iyo maxaa la yidhaahdaa qaabkii aan u soo geli lahayn I hope laakiin caawa inaan insha allah cashir nadiif aan qaadan doono cashirkeenana uu inoo bilaaban doono caawa almost waxaan soo hormariyaa u malaynayaa ciwaankii aan ugu talagalnay caawa inaan isla falanqayno waxaan filaa codkayga iyo shaashadeyda inaad si fiican u aragtaan saad la socotaan ciwaanka caawa aan ka hadli doono wuxuu noqonayaa sidee isbaaro loo dhigtaa qeexidda iyo qaabka loo qeexo by limit iyo cell limit maxaa laga wadaa by limit iyo cell limit maxaa laga wadaa ayaan baran doonaa saa wada ogtihiin markii laga sheekaynayo by limit iyo cell limit waxaa waaye markii aad rabtid inaad isbaaro u dhigatid lacag oo cell ku socotay ama by ku socotay caawa waxaan rabnaa marka inaan isla fahanno waxyaalaha laga wado by limit iyo cell limit sidoo kale by stop iyo cell stop kadibna aan isla aragno macnaha guud ee ka dambeeya markii aan isku dayno in aan qeexno by limit iyo cell limit saan la socono by limit maxaa laga wadaa by limit saa u jeedid maxaa laga wadaa by limit macnaheedu waa maxay by limit maxaa laga wadaa macnaheedu waa maxay halkee u socotaa markii aan macnayno waxaa la yiraahdaa markii suuqa la rabo isbaaro in loo dhigto by limit waxaa laga wadaa markii aan qeexno waa suuq ku socda cell oo aad sugaysid ilaa uu kaaga imaanayo meel cayiman ama boosteejo uu marar badan ka laabtay suuqa uu ka aaday by limit macnaha waa suuq ku socda cell oo soo daadanaya oo u soo daadanaya hoos suuqaasoo aad rabtid inaad u soo raacdid by marka waxaad dhiganaysaa wax loo yaqaano by limit waxaan filaa inaad ila haysaan by limit by stopna maxaa laga wadaa by stop waxaa laga wadaa markii aan qeexno waa suuq ku socda jihada by balse uu ku dhaafay intrigii aad ka gali lahayd ama aad ka soo raaci lahayd oo aad doonaysay in uusan ku dhaafin intriga sidoo kale xilliga aad ku sugaysid baa loo yaqaanaa by stop goob ama boosteejo oo aad isleedahay uu soo gaari doonaa suuqan kadibna by ayuu ka sii aadi doonaa taasaa waxaa loo yaqaanaa by stop waa isla haynaan filaa by limitna waxaa weeyaan suuq ku soo socday cell oo aad rabtid cellka markii uu dhammaysto uu ku dhammaysto goob dhowr jeer laga celceliyey ama hadda ka hor laga celiyey by looga celiyey aad rabtid inaad by ugu sii raacdid ayaa waxaa loo yaqaanaa by limit by stopna waan sheegna waxaa la yiraahdaa waa suuq by ku socda jihadiisa guud oo ku dhaaftay intrigii ama meeshii aad ka qaadan lahayd then aad rabtid inaad ka geshid intriga labaad ama boosteejada labaad aad ka raacdid kaasaa waxaa loo yaqaanaa by stop bilcagsigeeda waa la mid by stop iyo cell stop by limit iyo cell limit waa same history waa isku mid isku qaab marka haddii aan macnayno by limit waa isla haynaa baan filaa iyo by stop intaba waan isla fahansannahay soo ma aan by limit iyo by stop waxaan fiirinaynaa cell limit iyo cell stop bal inta aan isla fiirin haddana cell limit maxaa laga wadaa cell stopna maxaa laga wadaa waxaan filaa inay ila socotaan codkaygana si fiican aad u maqashaan saad u jeedaan meeshan cell limit waa suuq ku socda jihada by wuxuu ku socdaa by suuqan oo aad sugaysid ilaa uu kaaga imaanayo meel cayiman oo suuqa dhowr jeer laga celceliyey cell loogu soo celiyey tusaale ahaan suuqan by uu ku socday siduu by ugu socday qaab noocan oo kale haddii aan ku tusaaleeyo
suuq buy ku socdo saan waaye wuu ku dhaafay entry-gi markuu ku dhaafay entry-gi waxaad isdhahday bal pullback-ta marka uu dhameysto ama maxaa la yiraahdaa uu soo laabanayo buy-ga kale uu soo aadi doono boostejada bartaan iga sii raacay ayaa waxaa la dhahaa maxaa la yiraahdaa cafwan haddaan kuu sheego sell limit baan sharxayna cafwan raalli noqda waa saxanahay suuqan buy ku socday bartaa markuu soo gaaro buy-ga oo aan isla calaamaysana bartaas markuu soo gaaro fiiri bartaas marka uu ku soo gaaro suuqan buy-ga ku socday ayaad waxaad dhiganaysaa isbaaro oo ah isbaaradaas oo aad ugu tala gashay inaad suuqaas ka soo raacdid sell ahaan aa usoo kala wareejisid ilaa inta aad soo raacdid kaasaa waxaa loo yaqaanaa sell limit oo isla fahanaa u malaynaa hadda sidoo kale haddii aan ka laabano sell stopna maxaa laga wadaa sell stop waxaa laga wadaa suuq markiisa hore ku socday sell uu u socday suuqan markiisa hore wuu ku dhaafay entry-gii aad ka qaadan lahayd ayaa ku dhaafay wuxuu u soo socday sell waxaad isbaaro u dhigatay bartaana isbaaro u dhigatay tusaale ahaan bartaana isbaaro u dhigatay waxaad rabtaa suuqan inaad u sii raacdid sell waxaad sugaysaa ilaa uu ka soo jabsado ama uu ka soo gaaro bartaan kaasaa waxaa loo yaqaanaa sell stop markii aan macnayno maxaa waaye waa suuq ku socda jihada sell balse uu ku dhaafay meeshii aad ka geli lahayd oo aad rabto in aad ku sugto meel kale oo entry ku ah ama entry oo aad rabto inaad sell ugu sii raacdo waa boosteejo uu ku soo dhaafay suuqii markuu ku soo dhaafay entry-gii waad aragtay inuu ku dhaafay waxaad raadsanaysaa entry kale waxaadna ogtay suuqaas inuu usii socon doono sell waxaan filaa inaan isla fahnay sell stop iyo sell limit haddii aan isla fahnay intaan fadlan 11 ii soo qora saan ugu sii gudubno fadlan 11 ii soo qora haddii aan isla fahnay intaas 11 meela socotaan okay aadaa u mahadsantihiin aan ka gudbo waxaan fiirinaynaa marka qaabkan practical ahaan meeshaan waa ujeedaa waa support resistance oo resistance support isku bedela iyo resistance ka koreeya waxaan sharxi doonaa waxa loo yaqaano sell limit sell limit sidiisa koowaad wuxuu ku imaadaa waa suuq ku socda buy market waa kana buy ku socdaa entry-gi bartaan aad ka geli lahayd tusaale ahaan aduu sell baad rabtaa inaad usoo geshid soo maahan entry-gaaga waxaad dhigata bartaas oo kale short position-kaaga soo qaadanaysa waxaad leedahay suuqan markuu hal allay lahayd bartaa uu soo gaaro bartaa sell iiga geli intuu inta ka imaanayo waa sugayaa leedahay isbaaraa dhigatay isbaarada markaad dhigato waxaad sugaysaa suuqan inuu kuu soo gaaro barta sayladaas inuu kuu soo gaaro buygan waxaadna og tahay dhowr jeer in laga celceliyey sayladan resistancegan in laga celceliyey uu suuqa marar badan soo gaaday isagoo buy ah kadibna looga soo celiyey sell marka waxaad aragtay suuqan inuu ku soo socdo buy kama aadan faa'iideysanno waxaa is leedahay bal suuqan ugu faa'iideyso sell waxaad dhiganaysaa sell limit wax loo yaqaano meeshaan waa ujeedaa soomaan sell limit aad dhiganaysaa kadibna sell aa usoo raacaysaa kana waxaa loo yaqaanaa sell limit waa isla fahanaa u malaynaa suuqan loo yaqaano sell stop waa ujeedaa soomaan sell stop maxaa la yidhahdaa isagana waa suuq markiisa hore ahaa suuq sell ku socdo entry-gaana rabto inaad ka geshid wuu ku dhaafay entry-gaan waxaad rabtaa inaad ka raacdid entry kale entry-gaasoo ah inuu inta uusan ku dhaafin entry-gaan marka waxaa loo yaqaanaa sell stop maxaad samaynaysaa isbaaraad dhiganaysaa halkeebaad isbaaro dhiganaysaa waxaad isbaaro sii dhiganaysaa tusaale ahaan buy-an ka dhiga cafwan raalli noqda kan wuu qaldan yahay totally waa idinka bedelayaa raalli noqda kan waxaa waaye buy stop ahaan baan u sameeyey laakiin waa sell stop ahaan haddaan u sameynaynaa tusaale ahaan suuqa waa kana wuxuu ku soo socday sell uu ku soo socday aslaynaa soomaan
suuqan wuxuu ku socday sell uu ku socday intriga wuu ku dhaafay markiisa horena wuxuu ahaa suuq sell uu ahaa suuq oo sell ayuu ahaa adna waxaad rabtay inaad geshid suuqan markiisa hore inaad geshida rabtay oo wuu ku dhaafay waxaad rabtaa inaad ugu faa'iidaysatid wax loo yaqaano sell stop inaad ugu faa'iidaysatid sell stop waxaa laga wadaa suuqa markuu sell ku socdo hadduu idhaafay intriga dambe yuusan idhaafine intriga dambe aan ka raacay sii raacsii bartaa markuu soo gaaro waxaad leedahay marka sell stopka bartaa boostejadaas idhig marka uu soo gaaro aan sii raaco oo suuqan aan u sii raaco sell hadda waa isla fahanaan fila hadda waa kaasa marka aan ka sii socono suuqa qaabkan waaye sell stopkana bartaasaa dhiganaysaa waxaad leedahay suuqan markuu inta soo gaaro sell aan u raaco sell ii geli marka waa qaabkaas waa isla haynaa baan filaa waxaan isla fiirin doonaa wax loo yaqaano buy limit iyo sell limit buy limit maxaa laga wadaa buy limit waa kana buy limit markiisa koowaad waa suuq ku socda markiisa koowaad waa suuq ku socda sell u socda suuqan waa ujeedaa soomaan sell uu ku soo socday waxaad aragtay suuqan naga raali noqda qadkaan naga yara cuslaaday barteena aan kasii wadano meesheenana ha nooga sii socda cashirkeena waan ka xumahay sometimes qadka Soomaaliya waa iska taqaanaan iska culus yahay laakiin insha Allah intii tabare waa dadaali doonaa waxaan isku dayi doonaa inaan intuu qadka fiican yahay aan ka faa'iideysano waxaan sharxaynaa marka haddana buy limit iyo buy stop waa bilcagsiga sell limit iyo sell stop aan ku soo sharaxnay buy limit waa maxay waa suuq markiisa hore ku soo socday sell aad rabtid sayladan markuu soo gaaro supportkan ama sagxadan uu ku soo gaaro inaad buy ugu raacdid aad dhigatid long position kaaga bartaas aad dhigatid spara la dhahaa long position kaas aad dhiganaysaa soomaan waa sell u soo dhaadhacay markuu bartaa imaaday waxaad aragtay suuqan inuu soo daadanayo laakiin alcamuum la celin doono uu kor aadi doono markaad waxaad samaysay sparaad usii dhigatayo waxaad dhahday buy limit baan ku geli doonaa mt4 kaagaad la soo baxday buy limit aad ku gashay waa isla arki doonaa qaabka uu buy limitka u shaqeeyo iyo qaabka loo gashto intaba waa isla fiirin doonaa hadduu ilaa yiraahdo marka waa qaabkaas maxaa noo soo hara buy stop suuqan markiisa hore wuxuu ku socday suuq buy uu ahaa ujeedaa soomaan suuqa buy ayuu ahaa buy ayuu ku socday buy ayuu ku socday codkayga ma la maqlaa mise ardayda qaar ah codka ka cabanaya codkayga haddaa maqashaan 11 ii soo qora fadlan codkayga haddaa maqashaan 11 ii soo qora aan ka sii faa'iideysano waqtiga cafwan 11 inoo soo qora khayr Allah idin siiyo okay waa mahadsantihiin waa ujeedaan soo maahan suuqan oo buy stopka aan rabo inaan ku galo markiisa hore waa buy market waa suuq buy ku socday waxaad aragtay intriga inuu ku dhaafay waxaad rabtaa intriga dambe ama impulsiga dambe in uusan ku dhaafin marka maxaad samaynaysaa isbaara dhiganaysaa halkeed baad isbaara dhiganaysaa long position kaaga soo qaadanaysaa bartaas markuu suuqu soo gaaro ayaad waxaad leedahay buy baan u raacayaa oo sell stopkeygana hoos ii dhig buy stopkeyga aan yiraahdo hoos ii dhig waxaad aragtay fallaartaana ku soo dhaaftay tusaale ahaan suuqan waa buy uu soo kacay isagoo inta maraya aragtay adu marka risk ma qaadanayso sidoo waxaad rabtaa inaad ka gashid meel wanaagsan oo suuq buy ugu socdo Soomaan marka waxaa la rabaa in aad adigu ka taxadirto boostejada is leedahay suuqaas uu imaan doonaa then waxaad aragtay boostejo kale inay ka koreyso waa tusaale kale baska hadduu ka soo tago ayaa waxaa jirta boostejo kale oo lagu sugo Soomaan ama meel boostejo uu istaago kadibna uu ka soo kala wareego waa qaab noocaas oo kale marka suuqan buyga uu ku dhaafay waxaad aragtay isagoo soo jabsaday resistance-gaagi oo support isku bedelay resistance-gi dan barta markuu maraya waxa aragtay inuu kuugu dhuftay
meeshii aad rabtay kadibna aad ka sii raacday buy aad ka sii raacday waa isla haynaa soo maahan waxaana loo yaqaanaa buy stop hadda waa isla fahansannaha u malaynaa buy stop intaan waa isla fahanay soo maahan buy limit iyo buy stop buy limit maxaa la lahaa suuq markiisa hore sal ku soo socday kadibna aad buy u raacaysid markuu sal ka dhammaysto buy i raacay aad leedahay buy stopna maxaa la yidhaahdaa waa suuq markiisa hore buy ahaa kadibna uu ku dhaafay intriga aad ka qaadan lahayd aadna kadibna samaysay maxaa la yidhaahdaa boosteejo kale aad kasii gaadhay kaasaa waxaa loo yaqaanaa buy stop intaa misla fahanna ardayay mislahaynaa haddii aad fahanteen noo soo qora inoo soo qora haddii aad fahanteen noo soo qora si aan ugu sii socono aadaa u mahadsantihiin marka waxaa la rabaa caawa kadib in aadan ku wareerin wax loo yaqaano buy limit iyo buy stop sidoo kale sell limit iyo sell stop wixii caawa ka dambeeya waxaa la rabaa in aadan ku wareerin kadibna aad si fiican u fahanto waxaan ku fiirin doonaa real marketka tusaale ahaan waxaan ku fiirin doonaa real marketkan ku fiirin doonaa okay aan idhaahna tusaale ahaan suuqan arday fariid ahaan rabaa geesi ah oo wax fahmay inuu ka soo jawaabo this is a part of exam suuqan waa ujeedaan soo maahan suuqan tusaale ahaan wuxuu sameeyey wax loo yaqaano double top uu inta ka sameeyey tusaale ahaan suuqan double top uu inta nooga sameeyey laba taabasho ayuu wuxuu ka sameeyey maxaa la yidhaahdaa bartatan inkasta uu kan soo taabanin laakiin waa double top soo maahan tiirarka simana loo yaqaanaa marka suuqaana rabnaa in aan raacno suuqan masal baan u raacnaa mise buy waa tusaalan ka rabnaa arday fariid ah oo iiga jawaabo ayaan rabaa suuqan bartaan maxaan ku calaameeyaa magacee baa inoogu qoraa markaan raba inaan tiro aan soo tiro dadka aan u soo diro cafwan signal aan rabaa inaan u diro qaabkaanaan u diyaariyey setupkii waxaan idhaahday suuqan magac hebel ku gal magacee baan u bixinaynaa magacee ayaan u bixinaynaa haye ma buy stop baa ma sell limit baa ma sell stop baa haye arday fariid oo kasoo jawaabaan rabnaa bartaa magacaan u bixin lahayn suuqan inoo sheega maxaan ku gelaynaa suuqan waa tusaale lacagtan aan falanqaynayno waa iska tusaale aan ugu talagalay inaan idinku tusaaleeyo marka waxaan rabaa inaan ku falanqayno aan ku fahno buy stop iyo sell limit iyo sell stop intaba inaan ku fahno hadda suuqan maxaan ku galnaa magaciis ayaa arday inoo soo qora ardayda qaar waxay leeyihiin buy stop xafso buy stop baan ku galnaa miya suuqan ma buy stop baan ku galnaa zakariya absolutely maasha allah waa sell stop suuqan lan waa ujeedaa soo maahan qaabka uu noogu diyaarsan yahay suuqan waa sell stop because of suuqan balfiiri fallaarta haddaan kuusoo qabto suuqan waa kana kandhalkan hadda muuqdo waa kandhal sell ah hoosuu usii socdaa calaashaan suuq ilaa intaan inuu soo gaaraa laga yaabaa hadda mislaynaa aduu bartaa waa ka soo geli weyse wuu ku dhaafa waxaa is dhahday bartaa kale ka gal kana waxaa loo yaqaanaa sell stop soo fahna hadda intaas kan maxaa la yidhahdaa markaas setupka aad diraysid maxaa la yidhahdaa waa sell stop hadda mislaynaa haddii aad fahanteen iisoo qora arday fariid ay ku jiraan meesha oo si fiican u fahmay haye bal haddii aan ku celiyo fiiri tusaale ahaan haddaay markaan soo sharxaynay ugu celiya casharkeena fiirso bartaan ugu celiya tusaale ahaan fiirsaya dhinacan inoogu leexiyo kaa hadda sharxayna waa kanoo kale tusaale ahaan suuqu baayuu ku socday waxaan idhaahnay markuu soo gaaro bartaas
waxa inooga soo gelisaa sel ahaan inoo soo geli tusaale haddana suuqiya waxaa aragnay isagoo ku soo socdo sel inoo soo geli ma ahan yaa markaan limit ma ahan waa sel suuqu sel buuba ku socdaabo aan idhaahna suuqu sel u soo socdaa selki isagoo ku socdo baan waxaa arkay in tirigii aan ka soo raaci lahaa inuu idhaafo meelahan isagoo maraan arkay waxaan soo qaatay short positionkayga bartaasaan dhigtay suuqina wuxuu soo marayaa meelahan uu soo maraa isbaaraan u dhigtay isbaaradaas magaceed sel stopaa la isbaaradan hadda mislaynaa intaan waxaan rabaa suuq markuu intaan soo gaaro inuu active ii noqdo kadibna ilaa inta aan la sii socdo kaasa waxaa loo yaqaanaa sell stop intaan misla fahnay Yusuf intaan misla fahnay haddaan isla fahno 11 inoo soo qoro fadlan saan ugu sii gudubno qaybta kale aan ugu gudubno intaan misla fahnay 11 inoo soo qoro fadlan okay waa mahadsantihiin I hope inaa marka sell stop aad taqaanid waxaan fiirinaynaa haddana sell limit aan ku fiirino real marketka sell limit maxaa la yiraahdaa fiirsaad sell limit maxaa la yiraahdaa tusaale ahaan inaga jar sell limit aan rabnaa inaan ogaano ma ogtahay waxaan rabnaa bartaa inaga jar maskaxdaada fur maskaxdaada si fiican u fur sell limit baan rabaa inaan suuqan u galo waxa arka suuqan buy inuu ahaa suuqan waxa arkay inuu ahaa suuq buy ah oo u socda kor suuq markuu saan u socdo maxaa loo yaqaanaa uptrend lahaa uptrend waa suuq ku socda buy waxaan arka suuqa marka in uu joogo meel uu ka soo kala wareegi karo ama waxa is iri suuqan allay lehe bartan uu soo gaari karaaye jaaniskaas yuusan ku dhaafina waxaad samaysaa bartaa waxa ugu gashaa sell limit hadda mislaynaa sell limit maxaa la lahaa suuq markiisa hore buy ku socday kadibna soo kala wareegi doono oo soo aadi doono sell maxaan samaynaa marka aniga waxaan samaynayaa short positionkaygaan soo qaadanaa waxaan leeyahay bartaas ii dhig stop loss-kaygana iga kormari meesha fiirsadaya meeshan waxa ka dhaca si fiican u fiiri targetka inteen ka dhigtaa ilaa meesha uu ka soo dhaqaaqay igi targetka stop loss-kana inteen ka dhigtaa waxaan ka dhigtaa meeshan intaan la simaa double top kaanaan la simayaa meeshaanaan la simayaa bartaasaan la simayaa ama xoogaha waa ka yar kormariyay okay 30 bib waa caadi maxaan ku xisaabtami doonaa 75 bib isbaaradan markaa dhigitid maxaa loo yaqaanaa isbaaradana waxaa loo yaqaanaa sell limit ordhalan yaro si fiican waa ila socotaan Soomaan isbaaradana waxaa loo yaqaanaa sell limit oo macnaheedu uu yahay suuqa markuu halkaan imaado fadlan ana hoos ii raacay kor ma rabo inaan u sii raaco calaashan wuu soo dhaafay Soomaan hoos ii raacay bal aan fiirina marka sell limit-ki aan samaysto wuxuu sameeyo ila daawo stop loss-ku kaaga dhufto Soomaan exactly ha kaaga dhufto waxaan rabnaa marka inaan sharxeeno anyway kan ka soo qaad meelahaasba inuu ku yaalo waxaan sharxeynaa sell limit qaabka loo galo Soomaan bartaas ba haduu rabaa ku yaalo sell limit aan rabaa suuqa waxaan leeyahay sell limit barta markuu soo gaaro ma ujeedaan anu sell aan u sii raacaya waxba igama gelin korka intuu aaday intaan dhiganaa boostejadayda ama isbaaradayda bartaasaan dhigtay hay bal aan fiiri inuu soo gaaro meeshaas iyo in kale Rabbiyo soo gaari soo ma jeedid kadibna TP-gayga wuxuu igu dhacay si nadiif ah kana waxaa loo yaqaanaa islayna kan maxaa loo yaqaanaa maxaa u dhigtay isbaaradan bartaa maxaa u dhigtay sell limit asla faanay Soomaan suuqa markiisa hore baayo ahaa waxaan u soo raacay sell waxaan iraahday suuqan allay leeyahay meeshan wuu ka soo laaban doonaaye markuu ka soo laabto meeshan bartaa aan sell ii dhig sell limit ii dhig inaa mashquushida laga yaabaa qaabkaasa waxaa lahaa sell limit haddii aan intaan isla fahnay fadlan 11 ii soo qoro aan sii gudubno ila shaqeeya 11 inoo soo qoro sell limit waa haysaana u malaynaa hadda 11 inoo soo qoro
great aan ka socono bal aan fiirino haddana by limit haddana aan isla fiirino by limit wax loo yaqaano simple waxa lagu adkeynayo wax adag ma ahan meeshaan aaday ugu fududahay Garsoor Academy wuxuu diyaar u yahay dhalinyaradiisa iyo macallimiintiisa inay si sax ah ay ku caawiyaan bilaa shuruud hadda waxaan raadinayna muxuu ahaa by limit buu ahaa Soomaan by limit ayaan raadinayna Soomaan haye bartaa naga jar bartaana iska jaray suuqan salow ku soo socdo Soomaan suuqa waxaan ku iraahdaa by limit waa maxay waa suuq markii soo rasal ku socday oo aad rabtid boostajada uu by ka aadayo inaad ku gaadid Soomaan okay by limit ki intaan dhigana long position aan soo qabsanayaa waa kana waxaan leeyahay long position kayga alla ilaahay bartaan uu imaanayaaye markuu bartaan imaado idhig inta stop loss kaygana meeshaan idhig asla fiirin kan maxaa loo yaqaanaa waa by limit suuq sal ku soo socday aan rabno inaan by u raacno Soomaan sal ku soo socday salka waxaan ogaaday inuu meelahan ku dhamaanayo ogaaday barta idhig haye bal aan fiirino barta markuu gaaro iraaci aan dhaho haye bal waxa dhaca fiiriye meesha muxuu sameeyay suuq bal fiiri ilaahan kugu dhaarsheeday ماشي أديك تأمل استبلس كاجا دعوامي ما حدا هذا سوقا بايو آدي دوناية بل باي راعي سلو نكوسو سعود سومان باي لمت إسبارة أوديكتي almost إنتان يرميقا كقبسان ليت هدي أدفان سند هاي سوقا إنتان يريسته أو ماشان إسبارة دان ير أديكتي إلا إنتان ميقا وايفير والله واتني أفر بيب هدي العق في عنكو قشد العق مناكسانها كقبانيسا باي لمت واسلفان نسومان جايس باي لمي مش لفان هدي أنس لفان 1 إنا soo qoro waqti baan ugu socdo 1 إنا soo qoro fadlan caaw waxaan sharxaynaa buy limit iyo sell limit qaabka loo isticmaalo waxaan hubaa inaan isla hayno buy limit iyo sell limit sell stopna inaan isla fahanay bal aan fiirina buy stop iyaduna maxay tahay buy stop iyaduna maxay tahay barays ma sharxayna caawa meesha lacagta laga qaato intriga meesha la dhigay iyo meesha aan la dhigan caawa 10keenu ma ahan 10keenu caawa kaliya waxa diiradda ku saareenaa buy limit maxaa la yiraahdaa sell limit maxaa la yiraahdaa buy stop maxaa la yiraahdaa sell stopna maxaa la yiraahdaa isla fahanaan filaa intaan Soomaan I hope intaan haddii aad si fiican u fahantid inaad ila jaan qaadi karto oo aad si wanaagsan ila socon doonto waxaan qaadan doonaa 10ka ku xiga oo ah MT4ka sida loo gashto buy limit iyo sell limit wasla fahanna Soomaan inta buy limit iyo sell limit tusaale marka tusaale aan qaadana bartan tusaale aan ka qaadano anu buy limit baan rabaa suuqa inaan u galo Soomaahan buy limitka marka u galaayo ama sell limitka kanoo kale hadda sell limit baan soo gali lahaa sax wuxuu ku socdaa buy uu ku socdaa almost meelahan inuu soo gaaro bartaasa inta calaameystaan waxaan sameyn doonaa waxaan leeyahay suuqa bartaan uu soo gaari doonaa Soomaan haye waxaad ii samaysaa anu sell limit baan ku galaayaaye suuqan buy haduu rabo uu ka dhamaadee taxliilintaada fiirinaysa bartaas ma aragtaa aad soo dhiganaysaa bartaas ma aragtaa aad soo dhiganaysaa cafan moodka dadka aan moodka ku jirin moodka haysa saaran ardayda qaar cafwan automatically ana idin saaraay markii ii kaadiyay dadka inaga culus fadlan mood saar ardayo adoo mahadsan fadlan mood saar codkayga si fiican waa u maqashaan Soomaan waxaan leeyahay targetkayga ilaa barta iiga dhig si fiican madaxaaga u furiya targetkayga waxaan leeyahay fiirsaya si fiican madaxaaga u fur fadlan ardayda qaar mood tasgiliyaan ama waa ka remove gareeyaa groupka
fadlan mood isa saar walaal adoo mahadsan mood isa saar walaal waqti baa inagu socdo fadlan hana mashquulin mood isa saar Yusuf Mohammed adaan kula hadlaa walaal moodka isgili ama dii kale waan remove gareynaynaa ardayda dhibka badan naga daaya fadlan waqti ma haysano okay waa mahadsantihiin bal fiiri bareyskan saan u qaadanayo meeshaan intriga aan ka samaysan doono suuqa waxaan iraahday inta wuuba soo gaari doona Soomaan ha bartaasaan dhigtay bartaan magaceed maxaan ku magacaabi doonaa yaa ii sheegi kara car bartaa yaa ii sheegi karo maxaan ku magacaabaa magaca u bixinaya ii sheegi karo bartaan waxaan iraahday suuqa meeshaan wuuba soo gaari doonaaye fiiri hadda salo ku socdaaya suuqa waxaan iraahday inta aan koraan ka gala fiiriya bartaas markuu soo gaaraan sal u soo raacana maxaa loo yaqaanaa waxaas yaa ii sheegi karo exactly muxdiin macallin waa sell limit si fiican baad ila socotaa waa jeclahay markaa xisada aan sharxayo ardayda sida wanaagsan ila socoto sell okay sell limit markaan saan u samaysto maxaa rabaa entry pointiga price-ka saxda inaan qaato double click baan siinayaa meesha maxaa igu qoran entry price baa ii qoran Soomaan lambarka 1.23753 aa u jeedid ayaad waxaad gelin doontaa MT4 kaaga markii aad doorato qaybta sell limit-ka price-ka qaybta ay ku qoran tahay hadda aan idin sharxi doono ayaad gelinaysaa lambarka kadib maxaad samaynaysaa stop level waad u jeedaa Soomaan stop level kaaga price kana gelinaysaa isagana 1.3986 tag profit kaagana halkeed gelin doontaa waxaad gelinaysaa lambarkan barta ku qoran 1.299 inta misla faana arday haddii aan isla fahnay inta caaw si fiican aan u qaadanay 1 isoo qoray idinkoo mahadsan bal aan arko 1 team sa u ekaato on badan noo soo qoro علشان سيفي عنها وفهم وكله great هذا أمهات سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان اسكوكو سو لابانينا قابك اللوغلية MT4 يسيد الله استعماله be ready guys another zoom ayaan idin soo diri doonaa ka faa'iidaysi wacan insha Allah